heerka bulsho ee caasimadda waa mid sii kordhaya sanadba sanadka ka dambeeya waxaana dadka ku nool magaalada lagu qiyaasaa ilaa 3 milyan oo qof arrintaasina waxay abuurtay ciriiri dhanka deegaanka iyo sicir barar la xiriira iibinta iyo kirada guryaha iyadoo taasi laga jawaabayo ay ganacsatada Soomaaliyeed ay maalgeliyeen xaafad cusub wadadan dheer ee idin muuqanaysa waxay idinku hogaamin doontaa dhul udgoon leedha ka dhacaysa ay tahay mid caafimaad qabta kana duwan mid ka dhacaysa magaalada gudaheeda dhismo joog hoose iyo mid sare oo loo dhisay qaab casri ah ayuu deegaankani uu caan ku yahay waana xaafadda cusub ee Dar es Salaam oo loo dhisay qaab casri ah nolol kasta oo qofka bini'aadamka ahi uga baahan yahay ayuu deegaankani uu leeyahay sida waxbarashada caafimaadka korontada biyaha internetka dalxiiska iyo meelo u gaara caruurta hadafka dhismaha xaafadda cusub ee Dar es Salaam waa helidda deegaan la jaan qaadi kara hanaanka magaaleynta qarnigan ee dunida ee ka hirgelisay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadiisa Muqdisho waxaan maanta ku sugannahay mashruuc lagu magacaabo Boundary Project oo ka koobnaa 4 guri ama 4 villo oo guryo u dhisan ama loo nashqadeeyay ay noqdaan dabaqa dhulka oo ah dabaqa ugu horeeyo dabaqa koobaad iyo dabaqa labaad ground floor-ka waxa uu ka kooban yahay laba qaybood dabaqa koobaad waxa uu ka kooban yahay 4 qol oo jiifa qol walbaana uu leeyahay mas'uul u gaar ah iyo sidoo kale qol yar store oo loogu talagalay in uu kaystado waxyaabaha ee u gaarka ah familiga digi doona insha Allah dabaqa ku xiga ama dabaqa ugu sareeya waxa uu ka kooban yahay 3 qol oo jiifa laba qol oo kamid ah saddexdaas qol waxa ay leeyihiin mas'uul u gaar ah qolka kale saddexaadna waa qol VIP master room ah kaasoo leh balcony isaga u gaara jacuzzi ama musqul aad u casriya oo loogu talagalay in familiga qaybta ugu culus inay degaan oo ay ku qaataan xaafadan waa xaafad casri ah X control afgooyo waxay u jirtaa 2 kilomitir halka lambar 4 iyo hadaa degan tahay ku imaan kartid 15 daqiiqo muuqaalkeeda aad iyo aad qurux badan guys haddaan faahfaahin in idinka siiyo xaafadda Safari Village Real Estate of Muqdisho waa xaafad aad u qurux badan waxay ku taalaa xaafad la yiraahdo Tabeelaha Sheekh Ibrahim oo daris la X control afgooy waa xaafad aad u qurux badan saa u jeedaan dhismaheeda waxay ka kooban yihiin saro dabaqyo iyo ku villoon gaagaaban xaafadda guud ahaan waxa waaye 94 guryood oo ka kooban yahay sida miraha lulka awjadaha badweynta insha Allah muuqaalkeeda qurux badan marka idin soo daaya daawan doontaan yani idinka sheekeen la socod muuqaalkeeda waa u jeedin xaafadan quruxdeeda waxa dhistay dad Soomaaliyeed oo reer Muqdisho isku tagay asaa u quruxsaday laamiye sameysteen guryaha quruxdeeda waa u jeedaan geedaha greenkooda dalka hooya haybadiisa kaali dawo qofku dogso quruxdiisa daawashada dadkaygu ha ku daarin diiba jooge dalka hooya haybadiisa kaali dawo